jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Ankara ayaa munaasabad soo dhaweyna heerkeeduna uu sareeyay waxa ay u saameysay caalimka Soomaaliyeed Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo booqasho ku yimid magaalada Ankara ee xarunta wadanka Turkiga. soo dhaweynta ayaa waxaa qayb ka ahaa safaaradda Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga kaasoo hogaaminayay qunsulka koowaad ee safaaradda ahna safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliyeed ee dalkan Turkiga Bishaar Ugaasa. culimada iyo hoggaanka guud ee jaaliyadda ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda soo dhaweynta iyadoona ugu horeyn hadallo soo dhaweynay ay goobta ay ka jeediyeen Sheekh Alwaajidi iyo waliba Sheekh Axmed. وياكم سود هذا دمان walaalaha munaasabadan ka soo qayb galay oo ugu horeeyo sheekheena oo xabiibkeena Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo meel dheer noogu imaaday wadanka qatar جزاه الله خيرا وشيخنا الفاضل الشيخ عبد الناصر حياكم الله وبياكم يا دمان طاقمك كسو قيب قالي او سفارة كسعودو iyo jaaliyada Ankara kulli iyo kuwa ka yimid Istanbul kulligina waxaan leenahay soo dhawaada munaasabadtan sheekh haduu joogo aniga meesha marti baan ka ahay hadaynu idin sheegay hadana ku celina mar labaad wallahi xaqiiqeen iga tahay ilaahana subhanahu wa ta'ala marqaatika ah mar walbaan u mahad celiya jazakallahu khayran iyo wanaag iyo ihsaanka uu noo sameeyay وسرد واجدي هداناهي خاصة طبعا ومدنا وانا اسمي خلاه خبرك تبارك وتعالى أنا وشيخ حتى أقل القليل إمامة قاوك أحرت حتى العقب بدنا نكوهله إيو معرفة بدنا نكوهله يعني مجرد لبس كيس أنقاتي وحوي يعني إلهي ويبارك جل جلاله إلهي ويدسنا سبحانه وتعالى بركدي سواك إنه إلهي نسيه سبحانه وتعالى مركا أنك رحوين هدانا وحان لهنا ما ذكر شيء من السلاح ومنه يعني مدح دوشي مدح مال كسريس والسلاح مجرد مركا هدي مدح وجوجو مدح يعني والدك وجوجو هذا النوبة بنان حقيقة كذا شيء سنة كهذنا مع لكن جزاه الله عنا وعن المسلمين. gudoomiyaha guddiga doorashada jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga Axmed Sheekh Maadka iyo waliba Zakariya Hurre oo matalayay jaaliyadda Ankara ayaa waxay sheegeen inay ku faraxsan yihiin in Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi soo gaaro magaalada Ankara iyadoo intaasi kadibna codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay qunsulka koowaad ee safaaradda ahna safiir ku-xigeenka safaaradda mudane Bishaar Ugaas. سيدات الشيخ حسن نوشي الشيخ حسن وفرع أصل كيو جو مركا ما أنت إلهي وقدرينا إنتان ودلا وأخيارا ودلا يري عرول له يسود ويان قارئين وين شيخنا عالمك شيخ عبد الرشيد شيخ عبد الصوفي مركا كواد ونوي ماذا سود ويننا معهن مركا الله بعد نملينا أنت أنجو يعني قاعد سود ويننا وكفر حسنا هاي وأنا أهلنا هاي وأنا أتاجنا هاي علماءنا جودهان جارهان شعب رشيد شعب الصوفي ومد الصومالية دولنا يوضع تخانو قرديسة قرآن كان يداعي مديسة دين الإسلام كان شيخ وحكوك سودوين إن مقالة أنكرا وحنكوك سودوين إن سديرا وغفن ونكسا تاسينا وحي عدينا ساينا وجعلنا وقبوب عند البضان ودنا يرى يوليال يهوينا ربورك كل تاجناين بل إني أركت هذا يسودوين هذا inay qayb ka qaataan. ugu dambeyntii waxaa hadalka qaatay oo munaasabada soo gabagabeeyay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi. alxamdulillah waxaan hadda saacadan aad arkaysaan oo aan mareynay saaca mutaakhira billayl inay tahay waqti dambe waxaanu kan safar baan nahay oo ilaa hadda baanu soo degnay anigoo jamaaca waxaanu kan nimid qadar نيجي حل السعودية أخونا الشيخ عبد الناصر عبد الحكم كفراوي ومن قارئ قدر قرئين تذكر قراءات تذكر براء وكان معنا ولدنا الشيخ حسن جزاه الله خير سنة حق بدقن مركا سودوين آديات أنا فرحنا بأن الله كلاني رئيس سفارة أخونا نائب السفير الله الشيخ أخونا بشارة لهم خلاصيو iyo جماعة ذكر الله سعودي وجالية أنت مثلي شيء
mid walbaba meeshiisu iyo magaciisu ku maamuusan yahay iyo odayaashan fara badan marka aad iyo aad baan idinku mahadinaynaa soo dhaweyntaas wanaagsan na soo dhaweyseen. Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi ayaa intuu uu joogay magaalada Ankara waxa uu booqday goobo kala gedisan oo diinta lagu barto waxa uuna maalintii shalay ahaa uu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Ankara. Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Ankara.